taageerayaasha Man United oo careysan kadib markii la ogaaday hadafka dhabta ah ee Manchester United ee xil ciyaareedkan. Wararka ka imaanaya Sky Sports ayaa sheegaya in Manchester United ay ku wajahan tahay inay gaarto hadafkooda xil ciyaareedka haddii ay sii wadaan qaab ciyaareedkooda hadda oo ay 3 kulan oo xiriir ah badiyeen horyaalka Premier League. Maamulka sare ee kooxda oo ay ka mid yihiin agaasimaha fulinta Cumar Barada iyo agaasimaha ciyaaraha Jason Wilcox ayaa la rumaysan yahay inay ku qanci doonaan haddii kooxda ugu yaraan ku dhameysato booska 6 sare, taasoo u xaqiijin karta inay mar kale ka qayb galaan tartamada Yurub. Tani sidoo kale waa yoolka tababare Ruben Amorim, kaasoo xil ciyaareedkii hore kooxda gaarsiiyay finaalka Europa League, inkastoo ay ugu dambeyntii ku weysay gacanta Tottenham ee uu hogaaminayay tababare Ange Postecoglou. Inkasta oo kooxda ay jawi degan ku jirto maalmahan, haddana waxaa weli jira dareen taxadar leh oo aan bunbuunis ku jirin, waxaana loogu talagalay inaysan cidna niyad jabin haddii kooxda hoos u dhac la kulanto. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in United aysan qorsheynaynin inay lacag badan ku bixiso suuqa January, taasoo la micno ah in Amorim uu ku shaqayn doono isla ciyaartooyda uu hadda haysto ilaa dhamaadka xil ciyaareedka. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. Warbixintana waxay qayb ka tahay barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaarto ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.